wixii shalay aw dheeglay bariir ka dhacay tusaale fiican u yihiin ciidanka in ciidamada Soomaaliya isdifaaci karaan isku filnaanshan aan gaarnay haddaanu nahay dawladda federaalka Soomaaliya. Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur CD oo saacadii la soo dhaafay socdaal kala duwan ku bixinayay deegaanada u dhaxeeya degmada Awdheegle iyo degmada Afgooye ayaa ugu dambeyn soo gaaray degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose isagoona dhiirigelin u sameynayo ciidamada qalabka sida ee dawladda Soomaaliya. Gudoomiyaha ayaa ciidamada qaybta 12 Abriil ku sugan degmada Afgooye soo gaarsiiyay hal neef oo geel ah iyo sidoo kale raashin oo ugu talagalay inuu ku dhiirigeliyo ciidamada xoogga Soomaaliya. ugu horeyn waxa goobta ka hadlay gudoomiyaha maamulka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose Aweys Cabdullaahi Umar Buulalow isagoona uu sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin in ciidanka maanta lagu wareejiyo raashinkan iyo neefka geel ee ciidanka loogu talagalay. aad ugu faraxsanahay waan soo dhaweynaynaa geelan iyo wixii lagu cuni lahaa oo gudoomiyaha uu gartay in ciidamada uu lagu dhiirigeliyo mar walba sida gudoomiyaha u sheegay waaye maalin walba ma aha week walba inaan bixino arigi bil walbana geeli inaan bixino waa soo dhaweynaynaa. sidoo kale waxa goobta ka hadlay taliyaha ururka 11aad guutada koobaad ee qaybta 12 Abriil oo ka gudoomiyay maamulka gobolka halka neef ee geel ee loogu talagalay. sidoo kale waxa goobta ka hadlay taliyaha guutada koobaad qaybta 12 Abriil oo isna soo gaaray degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. boqolna way mahadsan yihiin sida ay maaragtay xaw ahay deeqdan ay ugu keeneen ururkan iyo guutada xaw ahay sida sharafta badan leh ay noogu keeneen dhiirigelinta leh oo maaragtay wanaag badan leh waa uga mahadnaqaynaa. xaw ahayaa war badan ma aqaan laakiin ma hay wax sida ay u wanaagsan tahay waana iga soo dhawaatay. muhiimaddu waxay tahay in maamulkii degmada iyo kii gobolka iyo ciidankii oo isku faraxsan inay galabta halkan ay wada taagan yihiin xeradan maantana muxuu ahaa ay noo fidiyeen muxuu ahaa qadadan neefka geel ah oo halkan noo taagan iyo bariiskan iyo biyahan iyo wax ka badan oo horena ay noo siiyeen haddeerna ay noogu maqan yihiin. horta waxaan leenahay aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa waana ka qaabilnaa. ugu dambeyn waxaa hadalka qaatay gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellada Hoose Cabdulqaadir Sheekh Maxamed Nuur CD waxa uu sheegay in xilligan wixii ka dambeeya maamulka gobolka ay diyaar u yihiin in ciidanka howlgallada ay sameynayaan maamulka gobolka uu horboodo isla markaana ay diyaar u yihiin in al-shabaab laga saaro deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolkan. haddaanu nahay maamulka gobolka iyo kan degmadaba waxaan go'aan ku gaarnay inaan la qadayno ciidankeena wax weyn maaha neefkaas geel aan keenay hasha iyo bariiskaas iyo cabitaanka waxaas oo dhan waxaan ugu talagalnay ciidanka dhiirigelin waa macnaha in ciidankii annaga aan waxba kala ahayn sida dareeskooda aan u soo gashtay in maxaan ku ayagana inay maamul u yihiin saaliga marka waxa la far kaligeeda fool ma dhaqdo saaliga marka waxaan rabnaa in la isku duubnaado ilka wada jir bay wax ku gooyaan saaliga marka waxaan rabnaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed hadday booliis yihiin hadday daraawiish yihiin hadday military yihiin hadday nabad sugid yihiin hadday asluub yihiin waxa la isku dhahaa ciidamada qalabka sida saaliga marka waxa la rabaa ciidamada walaalaheena qaasatan oo halka la soo dejiyay oo AMISOM halka kala wareegay xeradan waa tusaale fiican wixii shalay aw dheeglay bariir ka dhacay tusaale fiican u yihiin ciidanka in ciidamada Soomaaliya isdifaaci karaan isku filnaanshan aan gaarnay haddaanu nahay dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda koonfur galbeed oo hadda maxaa ku raacay ciidanka maamulka gobolka saaliga marka waxaan leenahay taliyaha ururka ee halkan AMISOM kala wareegay taliya maxamed gurey iyo banduulis Ismaaciil waxaan leenahay taliyaha guutada maxaan ku raada oo ururku ka yimid taliya Generaal Xasan Jaamici iyo maxaan ku raada taliya ku-xigeenka qaybta maxaan ku raada 12 maxaan ku raada Abriil Cornel Xasan Generaal Xasan Faqash raggii maxaan ku raada aan la qaanay oo soo dagaalamay argixisada al-shabaab darsi u dhigay